السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا جنالكينا بربارينتا wanaagsan maanta waxaan ka hadli doonaa cuntada ku habboon in la siiyo ilmaha 6 bilood jira. ilmaha markuu 6 bilood jiro wuxuu ka soo baxay xaalad naas nuujin kaliya la siinayay naas nuujin barax tiran oo aan la siinaynin wax caano ah ama wax biyo ah ama cunto kale ah. ilmaha markuu 6 bilood jiro waxaa loo bilaabayaa cuntadii waxaa la rabaa inuu barto dhadhankii. haddaba maxaa la siinayaa ilmahaas waxaa la siinayaa horta ilmaha 2 waqti baa wax la siinayaa. subaxii waxaa loo sameynayaa subaxa horeeto waxaa loo sameynayaa naas nuujin. barqadii markay tahay ilmaha wax la siinayaa mushaali lagu daray caano baa la siinayaa. biyana cuntada markii la siiyay kadibna biyo baa la siinayaa, biyahaas oo laga sameeyay juice. sidoo kaleeto duurkii markay tahay ilmahaas naas nuujin baa loo sameynayaa, galabkiina naas nuujin baa loo sameynayaa. wax cunto ah oo u baahan yahay ilmahaas markaas intaas ma jirto. habeenkii markay tahay fiidkii ilmaha waxaa la siinayaa cuntada reerku markaas karsadeen oo ii sheeg marka la radqiyay oo loo burburiyay. ama waxaa la siin karaa haddii si gaar ah asaga loo siinayo baradho ama kaarooto ama moos la burburiyay aadna aan loo burburin laakiin la burburiyay ilmaha cuni karo. waqti kasta calaa waqtigii macni 2 waqti baa la siinayaa calaa waqtigii ilmaha waxaa la rabaa inuu qaato qaandada yararta ah oo 3 qaando ah cuntadaas inuu ka qaato baa loo baahan yahay. wixii ka dambeeya fiidkii marka cuntadaas ilmaha la siiyo wixii ka dambeeya ilaa habeenkii waan ka bariyay ilmaha waxaa loo sameynayaa naas nuujin. wax cunto ah oo markaas uu u baahan yahay ma jiro. cuntada gadaasheed waxa siinaysaa wixii juice markaas oo cabitaan ahaan aad dhigi kartid. waad ku mahadsantahay daawashada fiidiyowan ka codsanayna in subscribe noo saarto asxaabtaadana la wadaagto.